mudane gudoomiye marka hore xildhibaankii hore halkan ka hadlay tilmaamay doodeena inay furan tahay iyo noocay tahay waa la qabaa waana fikirkaas waa la wadaagaa dooda waxaa fiican inay wax dhasho hadda waxay u muuqataa in xildhibaanada qaarkood weliba kuwa xukuumadda mucaaradka ku ah in loogu talagalay inay mataqaanaa ku nafisaan oo ay fadhi ku-dirir ka dhigtaan ayaad moodaa taasna sharafta iyo qiimaha baarlamaanka ayay jeli doontaa hadday saa kusii socoto mudane gudoomiye waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeed ee TV ka fiirsan doonto arrintan in ay iska iloobaan wax kama jiraan ka soo qaadaan waxa xildhibaanada qaar ay meeshan ka sheegeen ma aha kumana matalaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxay sheegeen waa fikirkooda gaarka waa fikir aniga ay la tahay inuu gurcan yahay waa fikir ku salaysan xukuumadda in la wiiqo cadowgana oo gacan sareeyo waa fikir ku salaysan burcadnimadii shalay aan ahaa burcad ha ii soo noqoto burcadnimadii aan meesha ka wado waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka sharafta leh intaba raggi meeshan ka hadlay xildhibaanada ahaa fikirka aragteen ku hadlay in loo qaato sidaas inay yihiin dad raadinayo sidbursi iyo xukun gurcan inay wax ku maamulaan marnaba aysan ahayn in ay rabaan inay muxuu ah wax toosiyaan maxaa yeelay hadday rabaan inay wax toosiyaan mudane gudoomiye waxaa halkan ka yeertay frontiga laga soo baxay arrintaas arrin jirta ma aha ciidankeenana ciidan fronti ka soo baxa ma aha iyagoo maanta meesha ay joogaan aada uga liito ayay ku dhimanayeen mindoorkooduna ku dhimanaya in ciidanka la kiciyo dhanbaa loo diray soo kaca halkan imaada cadowga ka soo horkaca ee wax lagu raadiyo noocaas mudane gudoomiye wax baarlamaanku uu qabo ma aha waa wax shakhsiyaad kooban oo ummadda Soomaaliyeed wajiyadooda yaqaanaan ay qabaan waxaa halkan ka yeertay in khudbada madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta qaranka la fasiro ee si gurcan loo fasiro madaxweynaheena waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay waana sharaf iyo qiimo qof leh mana aha qof ku dhawaaqa wax noocaas caqiide iyo waxaasna kama uusan hadlin laakiin dadka fadhi ku-dirirka oo ilaa xalay iyo waxa social media ka hadlay wararkoodii in baarlamaanka loogu keeno ummadda Soomaaliyeed loo baahiyo mudane gudoomiye sax ma aha ummadda Soomaaliyeed iyo inta dhageysanayso iyo baarlamaanka sharafta leh waxaan u sheegayaa dadka in fiiro gaar ah loo yeesho waxaan u baaqayaa weliba hay'adaha amniga xasaanadu ma aha waxaan rabaa iskaga hadlayaa xasaanadu ma aha in cadowga Soomaaliyeed gacan la siiyo lana sheegto in laga tirsan yahay baarlamaanka Soomaaliyeed hay'adaha amniga waxaan ku baaqayaa in shaqadooda qabsadaan xasaanada yaan khalad laga fahmi ninka waxa uusan caddayn karin meeshan ka sheego xasaanad ma haysto waa xasaanadu ma aha warqad cad oo xardi ku qora ah in shacabka Soomaaliyeed niyada laga dilo ciidankeena loogu baaqo inay ka soo tagaan fariimada ee halka yimaadaan mudane gudoomiye mooshinka gacantaada ku jiro waxa ku qoran ciidanka frontiga ka soo tagay xildhibaanadii saxiixay waxaan ka rabnaa in baaris lagu sameeyo iyadoo ay cadeeyaan meesha ay ciidanku uga soo baxay inay sheegaan fadhi ku-dirir waa fadhi ku-dirir baarlamaanka Soomaaliyeed waa baarlamaanka Soomaaliyeed in been la iskala hor yimaado ee shacabka Soomaaliyeed been loo sheego ee media Soomaaliyeed been loo sheego ee fadhi ku-dirirada la wareeriyo ee war been lagu wareeriyo ciidanka Soomaaliyeed loogu baaqo inay frontiga ka soo baxaan waxa sameeyaan xildhibaan yihiin mudane gudoomiye arrintaas talaabo u baahan tahay guddiga anshaxa ee baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay indhahooda furaan ama gudinimada iska dhaafaan
cid caddayn karta in ciidan uu faranti ka soo baxay ma jiro. ciidanka Soomaaliyeedna waa ka sharaf weyn yahay inuu waxaas sameeyo. ciidanka Soomaaliyeedna caqiiday leeyihiin maaha ciidan caqiido lahayn. mudan gudoomiye waxaan codsanayaa guddiga anshaxa inay bilaabaan hawshooda inay qabsadaan. gudoomiyaha guddiga anshaxa waa fadhiyaa, xubnihiina waa fadhiyaan. hortiina waxaa laga sheegay in ciidan ay ka soo baxeen meel. ciidankaa haddii la caddeyn waayo inay soo baxaan, waxaan rabnaa in hawshaas ay tallaabo fiican la qaado. weli way saxiixeen, maaha keliya war, waa saxiixeen in ciidanka Soomaaliyeed uu ka soo baxay farantiga. waa mahadsantahay gudoomiye.